إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في العقيدة waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanaه wa tacaala inaan kelimaad ka idhaahdo mowduuca si loo bixiyey fahmi اlxayaa ama nolosha iyo fahamkeeda garashada aynu garanno noloshan adduuniyo iyo waxaynu ugu noolahay waxaa ka ratibmaya acmaasheenna iyo waxaynu la qasdinayno nolosha oo la gartaa waa arrin aad u muhima waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waalihi wasalam ah oo aan aada u jeclahay iyaga ururintooda keliya haddii laydin maqashiiyo inaa mowduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray dhoobo ka abuuray dabeetana ruuxu ku afuufay ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifat ullaahi fi lard ama inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qaybkiiee qur-aanku uu ka warramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey dabeetana bini aadamku uu doortay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina acradna alamaanata cala asamaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuralayda iyo waxoo dhan dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowraya oo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan faabayn ayaa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala dabeetana insaanku uu xambaaray ama se uu aqbalay diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale ee faabaadii ilaahay ibliis uu ku tilmaamaya lama nooc aha waayo ibliis amar baa isaga la siiyey laakiin qoladan qadiyaddooda waxay ahayd cardin inaa caradna lamaana baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala waa loo soo cardiyay waa loo soo bandhigay iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo deetana wuu diiday waa mid labaad ee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahay faashfaqna minha
iyagoo istisqaaran bay u diideen iyagoo isdhul dhigaya oo arkaya inaanay qaadi karaynin insaanku se wuu qaaday shaygaasi ammaanada insaanku uu qaaday waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxal siiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahay ma inuu alle caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen sawka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يقوم مطيعين وعابدين لله سبحانه وتعالى سوك إلهي سبحانه وتعالى قرآن ككت المامية إن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كواسو دمي اللي عابدين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذن كون كودم إلهي بعابده سبحانه وتعالى وما حيوحك قد سي هذا حوك قد سي ما ينو عاقل يهي سوك قرآن كتلمام يماها noola kaloo dunida ku nooloo caqli leh inay jiraan bale qisatu sulaymaan sawka qur-aanku inoo tilmaamaya maaha in shimbir uu ka soo warramayay malikatu saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay khayrkii inay caabudaan iyo waxaasoo dhan yacnii inuu fahmayey maa xawlah iyo waman xawlah gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay waxoo dhan inuu wada garanayay bale sawka hudhudku tilmaamaya maaha yacni miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayey kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayeen waxaasoo dhamme maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahayba may xayawaanada ijtimaaciga caalamka way ku badan yihin waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaana ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxdad doorasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantahy oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysataa ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamno waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar alibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku waa hadduu ku guulaystana inuu janno galo hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo waxaynu leenahay waxa alle subxaanahu wa tacaala markaa bini aadamka siiyey imkaaniya ficli alkhayri washar ama inuu shar iyo khayrba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiicanee la isugu nimceeyo ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee laysu itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee laysu itixaamo
إلهي سبحانه وتعالى وحانو كت المامية الحياة الدنيا بسماواتها وأرضها على الكقدم بيانو كميديا هي إن بشر كاللغو يتحام وقال القرآن كله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدان إيا عركان إيا دولكان إيا وحا نودم يودسي وحن لأنه وحا علاقة إنسان كي الزمن كدحية جيري إيا النولل إيا تطور كان ترى بدن لو بني آدم كمرأيه ودمانتي وحا الله طلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحن لأن إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كدقي متفهم إيا كون كانوا كنوا ليه وسميعا بصيرا بو كدقي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه با إلهي سبحانه وتعالى إن لا اتحامه درادد بلا وحين لأنه عالم الغيب إيا عالم الشهادة با إلهي نولا شوقي به وحلا أركي كره إيا وح غيب ومقن وحسيد الله قد إن بني آدم كالله يتحامه هذا وحوى لبا مشاهدة وحوى الباين دا ضدك وصار لها امتحان كوسكا يران كاري لها ولذلك ما مثلا حديث بخاري هذا ينوفر صنع كتاب الجنائز كوكسارور يا إمام البخاري وحنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام قفك بني آدم كا مركا حباشا اللي قرده إدتكو أي كيتشيستان إنو مقاله يعني سنقدك به هذا إنو دبو مقاله ودبتنا لما ملكاوي مادان وأي ويديا النبي عليه الصلاة والسلام يدين تسوي حكورني وهدو مؤمن يهين وشهاته إلهي رسولك سبوقره هدي ودا منافق أما كواسي قال هذا حالانا وأرنا يا وحبا ما قرنيه ويكو أرن دونان وحناها قرنين دبتنا إنا يقراعي دونان حديث محل شاهد كي نقص عن نوحيه وحلقو قراعي دون أبو حديث كتلمامي بمطارق من حديد دبتنا الرواق كبحة وحا مقل دونه من يليه غير الثقلين أيا مقل دونه وحا الله لأي وحا أدو وأنا هين جنك إيا إنسيقا وحنك لحقائق داسي حباشا كدعيسا وحا يوم مقل يعني يقو امتحانكم الجيران لكن بني آدم كوا لغا قري si loogu itixaamo daraaddeed isagu kuma jiro isagaiyo jinku kuma jiraan kuwa maqlaya waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala nolosha wuxuu u qaybiyey wuxuu qofka bini aadamkii ogaan karo iyo waxaan ogaan karin qiyaamaha dhicistiisii baa ka mid ah waa qofku goortu dhimanaya ama geeriyoonaya ka mid ah waxyaabahaasoo dhan waa la qariyey waxa loo qariyey in qofka lagu itixaamo caalam shahaada qofka ilaahay wuxuu uga dhigay adawaatul cilmi buu siiyey سميعا بصيرا بالغا صاحب فؤاد بالغا يلي كوا سودان waxa loo siiyay been leenayn in la itixaam noloshu qaabka ay u dhisantay oo dhami been leenayn waa qaab ku salaysan al-ibtila nolosha fahamkeeda xaqiiqiga ah wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la itixaamayo inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato maaha nolosha adduunyo waxa loo jooga ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo si imtixaanka bini aadamka loogu dhamaystiro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya jawaanib shahwaaniya waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl boqortooyo jacayl sultaannimo jacayl waxyaabahaas oo dhan waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey qofka bini aadamka waxaa alle subxaana wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiraanyada werwerka waxaasoo dhan inuu dareemo waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiraanyoodo werwero murugoodo waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxaas inuu dareemo
kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nafta bini aadamkaa ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا waxaa ilaahay tilmaamaya nolosha gebigeeduba xataa carruurta la dhalaya wuxuu dhammin imtixaanya waclamu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna waxaa alle subxaanahu wa tacaala tilmaamaya xataa dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyey oo dhammi innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamkaa iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamkaa xayaatul insaan baynu leenahay markaa haddaynu rabno fahmi alxayaati addunya min awaliha ilaa aakhiriha waa imtixaan waa mashaqa laqad khalaqna alinsaana في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لا بد من كبد ولا بد من كدح نولش هدي للربين لفهمه ونولل كسليسان امتحان واحد شرت مثلا أنا رنكرنا الفلسفة العالمية مركا الله يسكد وضد جوانبتك لقدسان أردن مركا يسكد ضيان inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyey dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan maxaa dunida sharku u jooga waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan Jehovah Witness iyo qolyaha la mid su'aalaha koowaad hadiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weeyaan ilaahay hadduu raxmaanu raxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan oo gaajoonayaan caynkan ugu dhacayso miyaanu ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaanama ay jecel yihiin inay ku sawiraan sifaadkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadkan ahay laakiin waxaan leenahay nasqi falsafi iyo caalamka kor yaala oo sharxaya alxayaati dunya ma jiro ila alkitaab wa sunna mooyaane waxaan leenahay dunida tan inay mushkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taalo oo waxaanoo dhibi yaaliin aslan baa loogu qastiyey waayo waxaa loogu talagalay in la isku itixaamo waxaa alla tilmaamaya subxaanahu wa tacaala bini aadamka in khaliifatullaahi fi lardi laga dhigay sababtuna waxay tahay in la itixaamo wahuwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم بإله إليه ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون حياتك سينة تسنين حتى منزلة الخليفة إن يتهي إن لينا إيغوب الوحي نقبرنا إن لينا يتحامه واحد بني آدم كالله ويالي إنه قابل شو نولاده إنه رير ياشو إنه حضارات ياشو إنه دول ياشو الظواهر الاجتماعية وحا لغو تلمامه social system اسكو إنه يتشيران وحا الله ويالي إن لا يتحامه وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وحين لنا إلهي سبحانه وتعالى وحب بن آدم كوغيا لك هو كوكلا قدسا أرساقه علمك عقلك حوقك عافماتك قروحك داغ وحكستك هو كوكلا قدسا سلو يتحامه وحين لنا حتى xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhaxeeya wuxuu yahay in la isku itixaamo rusush wama arsalna qablaka min almursaliin illa innahum layakuluuna at'aama wa yamshuuna fi al-aswaaq waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruun ba ilahi ilayhi subhanahu wa ta'ala wa kaayada kala ilahi la nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fi al-hayati ad-dunya
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا مجتمع waxa loo kala tagsiyo loo kala tafaraaruqiyay in la isku itixaamo waxa badh qani looga dhigay ee badh faqro looga dhigay ee badh loo curyaamiyay badh dhibtu u haysato in la isku itixaamo waxay leenahay bal ilaahay subxaanahu wa ta'aala bini aadamka mid quru ka dhigi kari lahaa waxa midabada loogu kala yeelay ee qabaa'ilka looga kala dhigay ee shucuubta looga kala dhigay inay imtixaankan galaan ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بإلهي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الأوادي كريه سبحانه وتعالى إنه أمة واحدة إذن كردقوا في كل الأشياء لكن لا إذن كمردقين أو حلا إذن كردقوا مجتمعات مختلف كلا أو كلا قدسان أو كلا فوق سببتنا وحيتها إن لا يسكوا التحامل هدان وردن سوكو بوحن لاني فهم الحياة وإرى إسكاكو بين كشرح كرنا نلشة دمانتين معنى كلاي السمين سامتشرته اللهم إلا الاختبار والامتحان نيتيتمو يعني وتجربة ابتلائية وحقرآن قوت المامية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلهي بوحليه سبحانه وتعالى وحندكو اتحامية قاتشو بقى حولياري نفياري وحاصور دبا ولنبلونكم بالله إلهي بوحليه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قفك بن آدم كايلا وحقو تلقلين لغو اتحامه بالآلام هداي قاتشتي هداي فقرتي هداي موتي هداي مصائبتي إيا هداي تي دباتوين كبدان إيه ظالمين تصمين إياه ظالمين توحى لغو اتحامي بالسلطة والقوة وحكانين إيانا برصيدة استعمالنا من نوع يقالان اللي أهم وحين لنا مرك إيمانكم ووجهك حقيقي إلا ربا إن لوغا جوابا امتحان كاسي oo hadduu dhib iyo mashkilad yahayna in lana sabro sidii looga bixi lahaana ilaahay loo tala saarto loo camal galo hadduu waxa lagu itixaamay nimco iyo sultaan iyo jaah iyo qurux iyo wax la noocayayna waa nooc min alimtixaanaat in ilaahay looga mahad celiyo subxaanahu wa tacaala oo loo mahadnaqo تجربته هداي بالنعمتي امتحانكو هدو بالنعمة إيه هدو بالنقمة وسوا وامتحانه داد سلطانية حول بدنية النمعية وحان هيستان ونوع من الامتحان هدي فقرية قاتشية ابتلائية مشكلة كانت ونوع من الامتحان وجهك كلية وقفكو امتحان كاسيك قدبانه وهدي مشكلتها هنا إنه صبر كي وحن ولي ماضه هذا النمعاد يا برواقد يا برارا يا كانت هينا إنه شكر الله يماده وحين لا نمرك قفك الصابر على الابتلاءات المؤلمة أما الشاكر كقوة على الابتلاءات الممتعة قفك شكر النقية إيا قفك صبر يلا بضبا ابتلاغا كان وو كسي بطا مركي نمعادا أما بلدس أي ولي مادان وجهي حقيقي للربين يوجد جوابان سيد الدرادين وحنا نذكرنا ابتلاءاتك dadku way ka warwaraan waayo noloshaanay saani u fahmin dadka badh waxa warwar badan uu ka haystaa qof baa laga yaabaa in mashkilada qabsato ama waxyaabo badan markaas waxa laga yaabaa inta badan faham qaldan inay dadku ku sharxaan
laakiin waxaan leenahay waxa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaat alkamaal albashari wa aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane walidalik ayaa xadiidka uu warinayo muscab ibnu sacd ibn abi waqaas wiilkiisu waa aabihii ka warinayo ee imaamu tirmidi uu soo saaraya uu leeyahy waa xasanun saxiix albaanina saxiixadiisa uu ku tasxiixinayo wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigan baa wuxuu ku yidhi nebi qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa ugu bale badan yaa ugu dhib iyo mushkilad badan dadka ayaa nebiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay alambiyaa dadka waxaa ugu dhib iyo mushkilad badan alambiyaa xadiidku wuxuu leeyahy uma alamhal faalamhal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihin ama alaagtii ugu kala dhow yihin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa fayubtala alrajulu calaa xasabi diinih qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay leegtay graafka iimaankiisu markuu kor u kacaba ibtilaa'aadkuna inay kusii bataan markuu hoos u dhacana in ilaahay ka yareeyo fain kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtadda balaa'uh wain kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diinihi buu nebigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu laagtay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu اlbalaa'u biاlcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanka iyo beled iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xag gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan tahay welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifa laga qaada kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way ka sii adkaada markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo itixaamo wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi thaanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelaya way sii bataan fakadalika almu'min kullama irtaqa fi darajaati aliimaan sulami liimaanka markuu kor u koraba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay u sii badato darajaadka uu gaadhayo walidalik ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmidi warinaya xasanun صaxiixa uu ku tilmaamaya sheikhu اlalbanina uu ku raacsan yahay wuxuu nebigu ku tilmaamayaa famaa yabraxu اlbalaa'u biاlcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khati'a inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixdى الriwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إن dadka ugu imtixaanka badan la anbiyadayiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu itixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanaynin cabaa'ada yare uu huwan yahay mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu farxdaan ay dadkan saalixiinta ibtilaa'aadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah inuu nebigu ku tilmaamayay ina cidam اljaza maca cidam اlbalaa
abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay beleda weynideeda وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ولما النبي يقول عليه الصلاة والسلام قوم هدون الله تعالى سبحانه وتعالى إلهي واتحامه فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط عند الرالي نقطنا رالي بولي عند عروتانا عرى بولي والعياذ بالله حلنا النبي عليه الصلاة والسلام مركز بوحو تلماما يا قفك مؤمن كا إن الرفعة ونقن كرته مسألة تانية وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالترمذي ورنا يا وحسنين يا وحليه إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا هدي قفك قال له خير لا دونيه مشكلتي سبا أدونك الله هرو مريا نبتي سأدونك كقاطع دي خير الله ولا ربا قفك كان أدونك انتو تشوغو نبتي سودان قاطع وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة قال شرك لدون ينا ذنوبتي سدوني دلقوا بالمريا والله كايديا سمر قول اللوغو دو فيو بوس كناري دا سر اوليه و غاadho waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladada kala qabsata wajiye kala gadisan bay leeyihiin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu yimaadaa lirifca wa tathhiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo waxa kale oo ibtilaagu dadka muuminiinta ugu dhaca litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب آيات كاسي الله سبحانه وتعالى وحكوت المامية dadka mu'miniinta sidan ay yihiin inaan lagaga tagaynin ee la kala saari doono al-khabiith wa tayyib laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wama kana allah liyutli'akum 'ala al-ghayb ghaybkana laydin ma ogeysiinayo waana laydin kala saaraya maxaa lagu kala saaraya waa aayaadkii tacqiibka oo ahaa uhud yani ibtilaa'aadka iyo mushkilaadka ku kala baxaysa markay mushkiladu ummadu ay gasho ayaa la ogaanaya keeda munaafiqa iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay كذا وحكى لكل فاقنايين يكيدي خير كون وذي مشكلة دادتك اللي وكلا وقاعد أما هدي اللي اسكوا ذا معيسين يلا وضع الصعود دادكم ما كلا قرتو لا ما كلا قرتو إذن هدي اللي الربا مجتمعين تمحيس لقو السمايو إلا كلا صعو ولا بد من ابتلاءات وليبلل يعني إلهي سبحانه وتعالى وحكت المامة إن دادك الله اتحامه وألا أموتيه ما في صدوركم ولا يمحص ما في قلوبكم waxyaabaa laabtiina ku jira iyo quluubtiinu si ay u caddaadaan wala yumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun aayaadkaasoo dhamme waxay sheegayaan koow waxaynu leenahay lilrifca ثانيا waxaynu leenahay liltathiir ثالثا waxaynu leenahay ibtilaaga qofka mu'minkaa ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim si loo kala saaro sufuuftooda تطهير الذنوب ويت وحقائق سجن بوص رجع نقف إنه قالوا وواحد سجية بل واكي حديث كي صحيحين كويا لم حت المامي ابن عباس يا أرد أرددي سكمد عطاء ابن أبي الرباح أبو حقولها ما كنت سياه امرأة من أهل الجنة ها بيري وقبل مدو هالكاتشوك تبكوا يري قبل صحد ما قبته ومدو مال فرد ده وحديث كي شيء إنه النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا يوتي مية ذا كعبان إسا صحدمه دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام حكوا يري قبلي هاي هدات الربطنا أكون دعين من والله كهذا هدات الربطنا واتسكا الصبري دبتنا الجنة لذ وحيت الإله رسول كيسيو وأنكو الصبر يا جنة الرباه لكن مركا عن صحاهم بان قاوس ماي إلهي وحدي ويدي سينا لعورض إذا يستراه دبا
dadkuuna cawradeeda dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu bariyay inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan ibnu cabbaas markuu arkay wuxuu dadka odhan jiray ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mida waa gabadhaas suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamayay idan qofku boosar oo janno abuu gaadhsiinaya dunuubtu ka maydhaya siday dadku u kala khayr badan yihiin buu ugu kala bataa dhibtu waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaallay tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u soo galay isagoo aada u xumadoonaya oo aada u xanuunsanaya markaasaan idhi buu ibnu mascuud markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xoog baad u xumadoonaysa innaka tuucaku wackan shadiida xoog baad u bugtaa nebigu wuxuu ku yidhi ajal haa waxaan u xumadoonayaa laba idinka midisay u xumadoodaan markaasaa waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan in adigu laba naga mida ajarkooda leedahay yacni maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay ajarkaaguna waa dhebel buu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika kadalik ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها وحلنا مرك ابتلاء معنى يالبدن بولي قفك مؤمنك قفك قالك isaga ibtilaagu ku dhaca muxuu yahay haddaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda inay waajahaan gaal iyo muslimba ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilahay yidhi xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas gaal iyo muslimba waa la soo maraya kullan numiddu yani ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min cataa'i rabbikin wax laga siinayo laakiin labada qolo laba macno kala gadisan buu ku yihi binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay baynu leenahay waa rifca waa koryeelid dembigoo laga daahir yeelayo tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo tarbiya fiican oo iimaaniyo la siinayo iyo ajarka loo kordhinayo markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu yahay waxaan leenahay wuxuu yahay cilaajan وتوجيها وإنذارا وإعذارا انتبهوا يجنا إلهي القرآن كيسوي حليه ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون كيهرا إلهي وحت المامية سبحانه وتعالى إن رسول الله صادري ظهر إلهي وحشاقين لغو بالبأساء والضراء inay dhibaato qabsatay waa ummada gaaleed baa dhibaato ku dhacday waayo ilaahay ciladu sheegaya wuxuu leeyahay la'allahum yatadarra'uun idan waxaan leenahay waa lilcilaaj bal nimcadu markay ka badatay inay fakaraan oo ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay falawlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadarra'uu walakin qasat quluubuhum الله وحليه سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون هذا يتضرع سمين ويا هذا يسلل بيجي ويا قراء حينات المامية هدنا إني معلق وبدله ابتلاقي مشكلات داها هذا إلهي وقصون قوايا سبحانه وتعالى وحلق لي ابتلاك له بالنعمة إني معلق دي بقفك oo yana lagu itixaamayo bal sidoo ka yeelo la'allahum yashkuruna yarji'un ilaahi wuxuu leeyahay thumma badalna makana as-sayyi'ati al-hasana hatta 'afaw wa qalu qad massa abaa'ana ad-dharra' was-sarra' فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون مكان السيئة الحسنة بقى لو بدله لكن هديك كاسنا ومركا سيكا سورتوبي ويدو حالة الاستئسال بيقادا مركا استئسالنا لو قسم يوكوان لايو إلهي وكلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مركا الله إلا به سبحانه وتعالى بأساقي الضراقي كسو النقوم وين أي لا يحلي فتحنا عليهم أبواب كل شيء الباب والبوان أفر ريبا إلهي سبحانه وتعالى لكن هدي كان أقبل ويان
وأي كبر كسي قادان حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بالهيد سبحانه وتعالى. waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada dhibta iyo dheefta aragtida quraanka waa isku macne labadubana waa imtixaan la eegayo mowqifka aad istaagaysaa wuxuu noqonayo qofka bini aadamka ina noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay mawaaqiftu istaagay markuu baraaraysnaa iyo mawaaqiftu istaagay markii dhibtu haysatay oo la isugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan waxaan leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysan tahay alibtilaa alxayaati dunya qur'aanku qisaska weyna siiyo iyo ambiyadu qur'aanku ka warramaana iyaguna waxaan leenahay waa النماذج البشرية السامية أو الناجحة في الابتلاءات وياه ككلاو قرآنك كشاكي يعني قرآنك كيالان والنماذج أما وتصاليال كلو بنا آدم أو يناكو ساقضي امتحانك التاريخ الإنساني مركا وحويان والتجربة الإنسانية أما وابتلاء سقفك بنا آدم كوصامري قرآنك قصص كينوغا ورما أردمنا وقال امتحانك إلا مريي كقولي ستي iyo qolo imtixaankii la mariyay ku saaqiday ambiyaduna iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nabi walba haddaad quraanka u sii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyay nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyay oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo waayo ambiyadu waxa weeyaan وشهداء مالنت قيامه ضدك أو دنكم مرخاتي كعيسي مثلا نماذج فضود أو ظلمرة هدان تلمام أشد الناس بلاء بينكم تلمام نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أبني ما يتصالكوي قرآن كوحين أغا والرمية إن لغو اتحامي أبني ما وعلى تلمامي إنه إلهي سبحانه وتعالى مركا هريدا شكا حري أو قبوبي أو دأ قاري أو يسوق الدأ وإلهي بريه سبحانه وتعالى وإلهي ويلسي لكن أولاد مرة دا امتحانك كم متحي أنبياء النبي كتير مركا تخصص كان لسيي وعرورتي سيلوغو اتحامي إبراهيم يعقوب لبضبا امتحانات كم ويكاله نبي الله إبراهيم وحل فري كي ودد بك هيستوي إلهي ويديستي إنه قورع بلا يري قورع وامتحان نين وينادي وداء قاري ومدبضان عن دالين وهدا الماء لسيي وإلمي وهدا يرى رعرعاية وحوق يري شيء وهدنا أمر لغسيي ملكا كليانا إنه برتا ماريا لكن وكو قولي استمركوا أقبالي إنه برتا ماريا إلهي فرش وفري وامتحانات خطيرة امتحان كأبن ما إبراهيم لمريتنا وقرمها حتى هذا حديث توفر ستحديث كي بخاري محوت المامي مركو إسماعيل انتو سوك حييه هو يدي وكجت جاي بيت الله الحرام هلك أمك ها وسكجت دقاقي محو جت جاي والنبي قيس كيسي لقوا يتحامي لكن وحال لقوا يتحامي بل قيس كان سيدو كيا لا يدين تيسا قيس كان وحي وجيستان dabeetana waxa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama daga agee oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarbad timira intaad u dhigto iskaga tag nabi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama daga ah dabeetana uu iskaga dhaqaaqay haweentii way qaadan kari weyday meeshan cidlada ah aan reer deganayn ee biyo oolinaya waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay inta miro ku jirtay in biyo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go'ayso cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin
ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay yaad nagaga tegaysaa ibraahimow oo u jawaabi waayo iska socday muddo markay daba socotay su'aal weydiisay allahu amaraka bihada bay tidhi cidladanaad nagaga dhaqaaqaysa ibraahimow ma allah ku faray haa buu ku yidhi ilaahay baa faray subxaana wa tacaala idan laa yudayicanaa bay tidhi haddii alla ku faray haddaa alla nama dayacaye maca salaama yani iska tag mar haddoo alle amarkii ay tahay bannaankaa fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta ilaahay hadduu si aan go'aamiyey nololba siduu alla go'aamiyey ku jirta waanu yeelaynaa bay tidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa taqaanin wuxuu u sameeyey iyo saa noloshii loogu fudaydiyey iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya midaynu ku xasuusanno reerkan iyo mowqifkiisii asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhammi waxayna xasuusinayaan qadiya min qadaaya alcaqiida atawakul cala allah dad sameeyey waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay tusaale kale aan idin siiyo maalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mushkiladda tani gala dhowrsoomi waaya ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso khilqadiisii alla uu abuuray subxaana wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hungurayso imtixaankan u fiirso qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaalo ah laakiin gabadh sayidatul qowm ah oo mansab sare leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkan ay u yeedhayso oo diidan waa tusaale oo ah lishabaab dumar qurux badan baanu u nimiyo dhul gaaleed baanu nimiyo meelo lagu barwaaqaysan yaha lamiyo mushkiladaa badan aakhiro nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah oo shaahid ka ah qadiyadda tan inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiran yahay inuu isxejin karayo mahmaa kahura ama ibtilaagu in kasta oo weynaado waxaan leenahay qur-aanka haddaad u fiirsato nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun waa tusaalay basharka u yihin daalimka ka hortegiisa ah waxay tusaale ugu yihiin in kelimatulxaq lagala hortago cid kasta aakhiro cidda ku marmarsoota tidhaahda waa la xoog badnaa iyo waa la weynaayo waa kan waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn wamaa adraaka maa fircawnu fircawn waa ninkii intuu dadka is hortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbukum ulaclaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri bale fircoon xukumkiisu waa dictator aan dunida weli lahaynin taariikhda caalamiga ah akbar dictator waa kaa uu qur-aanku ka warramayo waayo miyaa aragteen nin dowlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin iyo dunida ku aragteen nin xaakimo oo yidhaahda reeraha qaybo ka mida ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan fircoon intuu istaagu yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaahum raggu ha madho haweenkuna ha hadho wamaca daalik nebi baa loo soo diray waajaha mushkiladda intaa leeg waa aakhiro tusaale cid walba hor taagan yacni waxaan leenahay ambiyadu waa stars ama waa xidigo waa fabihudaahu muqtadi kuwa alla nebigiisa ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaalayaalka qur-aanka sidaa ugu taxan marka kullu shay iyagaa tusaale ka ah kullu shay iyagaa tusaale ka ah haweenku waxaynu naqaanaa nebiye kuma hayno amhiladoodii laakiin qur-aanku wuu tilmaamaya mawaaqif akbar taaqiya haweenays hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbida inuu ilaahay guri jannada uga dhiso aasiya
haweenaydu fircoon qabay waa ka alle subxaana wa tacaala qur-aanka ka warramaya mowqifka istaagtay oo ay ka door bidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan le anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misri iyo waxaanaan haysto o dhan waxay ka door biday inuu alle bayt filjanna uga dhiso waxaa qur-aanku mithaalu inoo siiyey haween kale maryamo ah waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii waxaa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu waraabiyey waxa qur-aanku uu tusaale inoo siiyey maalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto waa labadii hablee walaalaha ahaayee uu nebi muuse ugu yimi ceelka dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay raggu ka dareeraan meesha intay u weydaan way shaqaynayeen haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan waayo aabahoodna wuu gaboobay cid kale u shaqaysana ma haystaan laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin shaqadu kamay tagsiinin aakhira gabadh kastoo tidhaahda duruufilcamal baa igu kaliftay waxan iyo waxan iyo waxaan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo o u taagan waa shuhadaa waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaa xukaamta maalan ambiyaa ilaahay halkan u dhigay aakhira ku markhaati kaci doonta qofku markuu siyaasi noqdaa unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa ambiyaa ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa wakhtiga iyagu maamulayeen alcasru adahabi lilyahuud qoomka yuhuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay yidhahdaan taariikhdooda waxaa ku jirta wakhti ay u yaqaaneen alcasri dahabi wakhtigii dahabka ahaa waa goorma waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan waa laba nebi sulaymaan aakhiro wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo tajriba buu galay tajribadii hore way ka yara labaclabac tidhi waa kii fardaha iyo waxay yara ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay yidhi ilaahay dikrigii ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilahu igu itixaam buu yidhi inkaa alla u dhiiba subxaana wa tacaala ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan ciddan ba helin laakiin tii abaalkeed buu mariyey wuu ku guulaystay waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey hada min fadli rabbi liyabluwanii walaa waa kan ilaahay fadligii laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen inuu alla itixaamo buu leeyay inaan shukri noqo iyo inaan shukri noqin waa ka ilaahay weydiisanaya rabbi awzicni an ashkur ilaahay buu weydiisanaya inuu alle subxaana wa tacaala uu ugu mahadnaqo idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taagay dhahaa duruufi siyaasiya ayaa keensatay in caynkan la sameeyo in kan la sameeyo in kan la sameeyo aakhira ambiyaa taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka waxaan leenahay amhilatu lfaashiliinna dee qur-aanka iyana way ku badantay qowmu caad hamuud waxaan qoom qur-aanku ka warramayo dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashliyey sidaa daraaddeed waxaan leenahay fahmi alxayaa aw alxayaati addunya haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahamno waxa weeyaan inaynu u garanno inay tahay daarun lilibtilaa meel la ysku itixaamayo waxaa nolosheennoo dhanna inaad aragto mowqif kastoo aad taagantay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimid hadduu nimco yahay hadduu barwaaqo yahay hadduu badhaadho yahay hadduu cilmi yahay hadduu aqoon darro yahay wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimid oo lagugu eegayo mowqifka aad iska taagi doontaa kuu noqon doono waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto maalan nebiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka qof kastoo xanuunka xanuun ugu darani uu ku dhaco tusaale u yahay qiyaamaha waxaa loo soo taagayaa nebi ayuub
oo ku sabray oo tusaale ku ah mushkiladatan inaan xanuunka badan iyo dhibaatada marka kugu badato inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi haddaad qur-aanka ku akhrido aad maanta isku daydaan qiraa'a jadiida inay akhridaan min faatixatihi ilaa birabbi annaas waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo noloshatan waxaad garan doontaa noloshatan iyo waxaad u joogtaa inay tahay in lagu itixaamo kullamaa diintaadu sii kordhana in imtixaanadaadu sii adkaan doonaan waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa waxaad garan doontaa haddaad nimcaysantay iyo haddaad badhaadhaysantayba inay imtixaan ku jirto haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto dabeetana inay laba mid untay inaad walwaliya kugu dhacdo iimaan darro dunida aad doorato iyo inaad nafta dunida xakamayso oo aad aakhiriya jannada doorto oo aliithaaru bilxayaati addunya aw aliithaar bilyowmi alaakhir waa labada midun ilaahayna wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu maa nashaa cidda ta kale doonatana in alle subxaana wa tacaala uu badiyo haddii adigu aad bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila kuwa alla ku tilmaamayo kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhiro u haysata noloshana waina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun ama qolada alla ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya aan fahmin qasdigii nolosha dawaahirta dunida way fahmeen iyo saa loo manaafacadsado iyo kownkan alla taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto waa almanaafic aldaahira fi alxayaati addunya way garteen laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro labada midna muu garanin ikhwatii fi alcaqiida ma jecli inaan hadalka idinku badiyo waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay waxaan idinku soo koobayaa un kelimada muxaadarada idinku koobantay waa kelima waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahaya inaynu fahamno oo ah inaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwaraa waa taqaanin wiiga aad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma tihin usbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa danaha kaleo dhan waad iska dhaaftaa waxaasi oo dhan waayo waxaad isku daydaa marxala ah inaad u diyaargarowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd waxaan jecel un risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmo waxa u fahamtaan inaa imtixaan ku jirtaan imtixaankanina waa maalmahan yare aad nooshiin ee lixdameeyada sana ah ayaad ku jirtaa waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku waa imtixaan carruurtaadu waa imtixaan xoolahaagu waa imtixaan tacliintaadu waa imtixaan aqoontaadu waa imtixaan quruxdaadu waa imtixaan waxaad haysatoo dhami wax kastoo aad haysato calaa hada almindaarun ku eg haddaad xoolo leeday haddaad faqritay haddaad bugto hays odhan in dadku uu kaa satrooyi haddaad xoolo leed inaa moodi dadka inaad ka satroontay labadaba imtixaanunbaad ku jirtaa une waxaad maskaxdaada in badan ku xidhaa jawaabta saxaa saaad mar kasta u bixin kari lahayd si aad isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunyo qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiintaa ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihaadihi alasbaab in dunuubta alla kaga maydho in mansilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynaya waxa la yidhi waliyatakhida minkum shuhadaa mansilatu shuhaada waa boos loo baahayo qofka muslimka in la gaadhsiiyo laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oo la laynin ma gaadhaya waa in dagaal dhaca way dadna la laaya haddii la rabo boos shahaada in la gaadho walidalik baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeyey waxaa ka mid ah waliyatakhida minkum shuhadaa idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhammi inay imtixaantay imtixaankaasina labadaa waji inuu leeyay qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho boos saro oo janno in alle uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala iyo
noloshooda in la isku baro tamxiis uu ku dhaco ay waxay isku fahmayaan kooda kartida le iyo kooda iimaanka dhabka iyo kooda munaafaqa in mashkilaadka kana isku dhex gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih lacallahum yatadarracuun lilindaar lilicdaar akhiiranna bagtatan in cadaabku haleeli doono ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay markay buuxsadaan inay booskooda tegi doonaan ilaahay waxaan ka baryayaa idinkiiyo annagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi kuwii ku guulaystana alle subxaana wa tacaala inuu inooga dhigo waxaan dhammaantiinna idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka waa wanaagsan sababtu waa maxay waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina star kama maarmo waxay yidhahdaan noloshu muthul bay isaga baahantay wax kaa yaro sarreeya aad hiigsataad isaga baahantay xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay sidaa daraaddeed bulshada waa in loo sameeyaa dad ay hoogsadaan waa taqaanin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la yidhaahdo laguma tilmaamin inay dad yihiin waxa laga dhigay inay xidigayiin xidiga kubadda cagta xidiga shaneemada xidiga heesaaga nujuum walanaa nujuum nujuumteennu innaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa kuwaas baa nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa nujuumta ilaahay leeyahay fabihudaahu muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinnu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadkan ku guulaystay oo qur-aanka iyo sunnada ka warramayaan iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnada ka warramayaan imtixaanka ku guulaystay waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ay yihiin kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka fircawn iyo namruud iyo kayrkiina waa kuwii ku saaqiday hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwan ku guulaystay hayrkii baa la soo helayaa kuwii ku fashilay yacni nebi kasta iyo tusaalihii cagsigiisa abaad soo helaysaa ilahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo wallahu aclam wabillahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم guddiga maamulka waxay ka cidi daaranayaan dib u dhicii ku dhacay muxaadaradan oo waqtigeeda intaanu ka dheeraa kana horreeyey sababtoo ay keentay muxaadarooyinkii iyo xilligii qadadii salaada oo isa soo riixay oo dib soo siqay sidaa daraaddeed baa waxaa moodaa in maaragtay barnaamijkii maanta lagu talagalay iyo waqtigii la haystay ay kala dheeraayeen taana ay keentay maaragtay isriix ka yimid xagga barnaamijka taasu marka waxa weeye guddiga nidaamka waa ka cidi daaranaya iyo maamulka midda kalena waxa weeyaan nadwadii hadda loo fadhiyey ayaduna sidoo kale way doogtay oo waxay dib ugu dhacaysaa xilliyada dambe haddii waqti loo helo maxaa yeelay waqtigeedii waxa weeyaan waa la dhaafay haddana waxaan insha allah wax ka sheegaynaa su'aalo la xiriira mowduucii uu sheekh mustafa soo jeediyey su-aasha ugu horreysana waxa weeye mustafe wuxuu sheekh cumar faaruuq noo sheegay inaad haysid warbixin ku saabsan waqooyiga soomaaliya oo la xiriirta dacwada iyo nolosha waddanka hadday jirto wax ma nooga sheegi kartaa mala hadday warbixin tahay dee wakhti badan bay isaga baahnayd laakiin duuduub ahaan soomaalidu waa dad afka wax isaga sheego oral society ah maadaama ay dad wax isu sheegayiinna ma aha dad wax ka qarsoomaan see daraaddeed meel kastoo isugu yimaadaanba waa war uun waxa lagu hayaa in badan baana warramayseen baanu malaynayaa mar hadday war uun tahay maalin walbana waddankan waa lala hadlaa ama telefoon lagula hadlayaa hebel ka yimi yaa caynkan
kolley meeshaan ka imaadaan tilmaamo dhibaatooyin baa ka jiray dagaallaa meella wax waliba nabadda ayay ku koraan inta nabadi jirto dacwadu way kortaa marka laakiin nabad la waayo wax waliba hoos bay u dhacaan ama dhibtaa badataa intay nabadu jirtay dacwada xawligeedu aad buu u dheeraynayay xoog baan u socday runtii wax badanna way qabatay laakiin markay dhibaatadu timi waxay noqotay inay juhdigeedii oo dhammi isugu tago uun bal sidii dhiigga qofka muslimkaa loo badbaadin kari lahaa ama islaaxu daati albayn dadka sidii looga samayn kari lahaa waayo magaalooyinka qaarkood dee waa laga guurayba ama way ka dhammaadeen may jirin markaa faslun dambe cidi kama odhanin waayo waxay noqotay meel laga guuro waxa ugu badan ee ay markaasi abnaa'i saxwa isku dayeenna waxay ahayd uun sidii dadka nabad looga dhex raadin lahaa in ay dhacdo walilaahi alxamd waxaan rajaynayaa inay wax badan ku guulaysteen kuwoodii ugu dambeeyeyna waxaan aada ugu rajo weynay inay ku guulaysanayaan meelihii ugu dambeeyeyna waxaan jeclay usbuucan gudihiisa uun inuu ka soo baxo wax tilmaamaya heshiis dhammaystiran oo nabadeed inuu dhaco taasina bifadli illaahi subxaana wa tacaala bay ku timi iyo juhuudda dadka isxilqaama ay ka mid yihiin culammada waddanka degani dhanka dacwada ee kale meelaha aanu dagaaladu ka jirin runtii dacwadeedu xoog bay u xooggan tahay bii'ada qaarkoodna aad bay ugu faaftay markii ay joogsatay duruustii rasmiga ahayd ee dhulalyowgii waaweynaa ka socdayna waxaa loo fikray bal in loo bedeli karo macaahid in la furi karo litadriib ala'ima waadducaat laga soo saari karo a'imo iyo ducaad dadka dib u wacdido oo wax gaadhsiisa iyagana walilaahi alxamdu qaybaa lagaga guulaystay qaybaa soconaya qaybo kalena waa taxta daraasa cumuuman waxaan odhan karaa uun hadday nabaddaasi soo noqoto isbeddel weyn baan rajaynaynaa iyadana ilaahay baanu ka rajaynaynaa subxaana wa tacala inuu xasiliyo wallahu aclam su-aasha kale waxa weeye salaan kadib sheekhu waxaan ku weydiin lahaa taygu ama qoorxirku ma dembibaa mase ma aha hadduu dembi yahay waa xadkee dembigiisu waa la harkee waxaan aada uga cudur daaranayaa inay su-aalo dhowruun had iyo goor soo noqnoqdaan yurub gudaheeda waayo waxaan xasuustaa shirkan ka horreeya kuwii meelahan lagu qabtay inuu sheekh cumar ka jawaabayay inta la weydiiyey taygu muxuu yahay waxaan ka sii xasuustaa jawaabtu idin inuu ahaa hadduu wax la isku qurxiyo yahay oo mara yahayna quruxda cidinagama hegto hadduu wax gaali suga ekaysiis iyo wax kale yahayna waxaasi diinta kuma bannaana markaa bal idinku wax ku xukumo baalku hadduu aa leedihiin maalan dadku in badan waxay isku adkeeyaan ficlan waxaa jirta taqaaliid gaaladu ay lahayd oo soo tatawurto marka dambena noqdo shay ijtimaaciya waxaa laga warinayaa ragga qaar inay ku doodayaan in bahalka yare karaafaanka la yidhaahda ee gaarka ee asalkiisu uu ka yimi maalan aragti ah inuu saliib la xidhanayo dabeetana berigii dambe qaabkan loo dhigayo saasi ragga badh baa laga wariyaa su-aalo caynkaa ku saabsan oo markaa asal diiniya u yeelaya walidalik ba waxaa laiga sheegay nimankan eeraanta inay yidhahdaan xablu shaytaan bay yidhahdaan bahalka gebigiisaba kuma sheegaane markaa waxaan uga jeedaa un bahalkaasi hadduu maro caadiya iska iyo mara uuna de waa maro haddii afkaar kaloo ka dambaysa ay jirtana waa meel masalada qura anigu aan cabsida badan ka qabaan waxay tahay miyuu yahay tashabuh lilkufaar ragga badh waxay arkayeen inaan ahayn dadka badhna waxay u arkayeen inay xaggaaye marka anigu waxaan odhan lahaa masalada aniga waxba ha igu xiijinine shiikhiini ku celiya haddana wuu fadhiyaaye isagu ha ka jawaabo bismi illah su-aasha kale waa su-aal runtii aada maanta u soo noqnoqotay oo aada maaragtay dad fara badan soo qoreen waxaana weeye sheikh ma la ciyaari karaa ciyaarta loo yaqaano shatranji ama iskako waxyaabaha la ciyaaro waa shatranji ama iskako ma la ciyaari karaa su-aashaasuna saaka dhowr jeer bay soo noqotay marka lilahmiya
أسئلة فقهية أسئلة فقهية ما لا واحد كوفي يعني العلماء دي يقول رئيسين لو قد فيه لكن عموما الشطرنج كباهلك الله يرحمه هذا هرت كل ما ها وقت النبي عليه الصلاة والسلام يا الصحابة دي وحي عيار شرين وأنا عيار كتمي ضدك غير بريقة بيرشين كي هندي ده يا وحاسي عيارها أنا علماء دوي كلا صوعان وح نصيبك كسليسن نصيب كسليسن وحنا وحيد هذا ما وحن كسليسن نصيب كسليسن تخطيط مسكحة ما فكرية وحن نصيبك كسليسن waxay mutafiqiin inta badan ku yihiin inay mamnuuc yihiin iyagoo xadiidkii naridka uu daliishanaya ama laadhuuda iyo waxa la halmaala walidalik sheekh shariif cabdi nuur maruu ka fatwoonay wuxuu tilmaamayaa waxa loo yaqaano dubnada laadhuuda turubka kuwaasi ee nasiibku ku jiro yani marka hore waxba lagu qaybinayaa waxbaad nasiibsanaysa kadib aad wixii ku cayaaraysa kuwaasi inay mamnuuc yihiin fatwadiisaasi waxa ka mid ahayd waxyaabaha nasiibku ku jirin ee takhtiidka caqliga uu ku yimaada sida shaxdii culimada Soomaalidu inta badan ciyaari jirtay iyo shatranjka bahalkan la yiraahdo waxa la nooca inay banaan yihiin aimatul fiqh markaan dib ugu noqono ibn kathir wuxuu naqlinayaa almadahib الثلاثه imam ahmad iyo imam malik iyo abu hanifa إن يجوز رأسي سين شطرنجه إنه ممنوعية. الإمام الشافعي سوى الشروط صدحة وقراية وحيكسوا يعني إنه كراهية واركية. ويولي بكسي تفسيريا كراهية ذا سين كراهة التنزيه كراهة التحريم من أنهين. أنت أن كوجا هاي الله هذا. عدة هذا حديث بالله هي سجى كسو أرورنا أصل ماله. وحديثة وصحيحة ونبي كسوغان. والشطرنج يشحك والرمي حلال إيه حرام تونا متجرو وحقول يا سجان بعد أقوال الصحابة يقول عيار سينتوي ما دين لهذين ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون كنت المامين إن هدي مركزي أي تهي وحكى إنسان يقف في الصلاة دي كمشغول السواء مع أولاد أبورتا مع إن كان الإسكت يا برا هدي كله إلا هذا كله يعني شخصيا waxaan u janjeeraa qolada qabta inaanay xaraan tahayn wallahu a'lam bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaal ilaahay dartiisa ayaan ku jeclahay waxaan ku weydiinayaa imtixaanku wuxuu keenaa wax la yiraahdo stress maxaa dawo u ah haddii qofku isku arko stress badan sida saalku soo qoray macnaheedana waxa weeyaa maaragtay sheekha faahfaahin doonaa bismillahir rahmaanir rahiim waxyaabaha dhibtu inaga haysato waxa kamid ah kullay su'aalaha hadii goor sida loo dhigo waxaad moodaa inuu halkan fadhiyo kursiga qof la yiraahdo Mr. Nool يعني نوح والبيقان هو والبك جوابي كره علم النفس وحبك ما أقانه لكن وحن أجهيم إنه إلهي كتاب كسكوت المامي ألا بذكر الله تطمئن القلوب دو علم النفس وحكا والرمام يهاي نفت بن آدم كي يسال الله حصليه إلهي القرآن كيسوحنا قلت المامي إن ألا حسكي يويني دي سحسوس سديده يا أعماش الصالحة سمين تودي بط سجوده inay tahay wax qalbiga qofka bini'aadamku ku dago bal waxaan jeclahay inaan tajribo idin sheego waxa jira maanta jirka bini'aadamka waxyaabo lagu ogaaday waxa kamid ah hormones inuu soo daayo waxay ku tilmaamaan dheecaamo ifraazat dheecaamada uu jirka bini'aadamku soo daayo way tiro badan yihiin dheecaamadu jirka bini'aadamku soo daayo waxa kamid ah bay yiraahdaan dheecaamo ay hadda u bixiyeen مورفينات الدماغ أي في عربي كويل هذا مورفينات الدماغ مورفون كوادب هالشيء أما العبيل وصخرة ما عسافة الجودة شيء ما عين كان مورفينات الدماغ بيوبحية دكتور محمد علي بار في كتابه المخدرات
tabiibkaasi muslimka ah wuxuu ku tilmaamayaa weliba inuu yahay aqoon biologiga ama aqoonta dhakhtarnimada ku soo korodhay 73 wixii ka dambeeyay wuxuu leeyahay ilaa hadda waxa dunidu og tahay ilaa 200 oo maado oo jidhku uu soo daayo oo qadaayaadkaasi ku saabsan 200 ee maado ee baxtiga ku jira 40 ka mid ah ayaa ilaa hadda la rumaysan yahay buu leeyahay ta'siirka ay sameeyaan dabeetana wuxuu u daliishanayay uu leeyahay morfinaatu dimaaqa la yidhaaha waxay ku bataan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala si dabiiciya jidhka bini aadamka ugu soo daayo qofku markuu alamka iyo dhibta dareemayo dabeetana waa waxyaabaha keena qofku inuu xoog aanu u dareemin dhibaatooyinka gaar ahaan buu leeyahay maalan dumarku markay uurka leeyihiin ilaahay baa ku badiya subxaana wa tacaala si uurkan iyo culayskiisa iyo dhibtiisu uga yaraado jidhkeedu wuxuu soo daayaa morfinaatu dimaaq tiro badan oo maskaxdeeda stressiska iyo waxaan ka ilaaliya waxay dumarka ugu badan yihiin bay yidhaahdaan marka ay umulayso oo ah laxdada ay ugu dhibta badan tahay haweenku ayay morfinaatu dimaaqu jidhku soo daayana ugu tiro badan tahay min nicamillaahi si looga ilaaliyo foosha dhibteeda oo low buu leeyahay haddii aan bahashaasi jidhku aanu soo dayna gabadhiba dib uma umushan malaha haddana waxa kaloo la ogyahay buu yidhi maanta saynisku horumarka uu gaadhay chinesku irbada yarar baa jira ay dadka ku mudaan iyadaan qofka la suuxin oo aan lagu mudin tiyaatarka inta la geeyo suuxdin lagu mudin ayay dhakhaatiirta chinesku qof qalaan inta irbada yaryar oo tiro badan laga taago ayuu qofku sidii camaliyadii suuxitaanka oo kale ku dhacdaa dabeetana waa la qalayaa dareemina maayo midida lagu qalayo wuxuu leeyahay doctor maxamed cali baar waxa la ogaaday neerfayaashan gaarka ay ka mudayaan inay yihiin meelaha awaamirta bixinaysa in hormoonaadku dimaaqa kan ay soo bataan dabeetana qofkii alamkii aanu dareemaynin sheekhaasi wuxuu kitaabkiisaasoo kale ku tilmaamayaa waxa kaloo la ogaaday buu leeyahy iimaanka iyo cibaadada sida salaada iyo soonka iyo waxyaabaha la midii inay badiyaan qofka bini aadamka inay ku bataan morfinaatu dimaaqaasi taasi waxay sababtaa buu leeyahay qofka mu'minka ahi inuu dhibaatada uga adkaysi badan yahay qofka aan iimaanka lahayn walidaalika baa wuxuu leeyahay waxa maanta aqoonta sayniska ay sheegaysaa marka qofku ay sii badato dikrigiisuba iyo alle xuskiisa iyo weynidiisu markay ku sii weynaato qofkaba xasiloonidiisu inay sii badanayso iyo dhibta dareenkiisu sida daraaddeed waxaan leeyahay walaalkayga su-aashan soo weydiiyey intilaaqan min haada hadduu stresses iyo wax la mida yahay waxaad ka cabsanaysaa waxaan leenahay alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub waxay ka wariyaan zayn alcaabidiin ayaa waxaa la yidhi baa xanuunsaday adin baa bararay dabeetana waxaa la yidhi waa lagu qalayaa dhakhtarkii baa wuxuu yidhi bunji cab bunjigu waa baashan soomaalidu boocmadowda tidhaahdo soomaalida qaar baa imka walwalaaqdo cabbaa lay sheegayay geed boocmadow soomaalidu odhan jirtay iniyihii weeyaan bunji bay yidhaahdeen cab dabeetana wuxuu yidhi bunjigu maanka ma doorisaa haa baa lagu yidhi iga buu yidhi wax caqliga dooriye dooni maaye salaad baan gelayaa idaa dakhaltu fi salaa buu yidhi fafcalu maa badaa lakum markaan anigu ilaahay is hortaago idinku wixii aad qabsan kartaan qabsada uu tukaday bay yidhahdeen intuu tukanayay ayaa la qalay bay yidhahdaan yacni markuu ilaahay is hortaagay iyo weynidiisa u xasuustay ayuu xataa midada dareemi waayey bay leeyihin calaa kulli xaal akhi alkariim waxaan odhan lahaa un awraadda iyo dikriga yaa la kacabsigaaga badso insha allahu stresseskani way kaa yaraanayaan ogsoonowna dee imtixaanka haddii la guulaysto iyo haddii la saaqido toona wax weyn oo aad weyday ma jirte waa wax iska caadiyo berriba la geli karo mar labaadee wax saa looga warwaray inaanu ahayn wallahu aclam sheekh waxaanan weydiinayaa haddii aan diido inaan gacan ku salaamo ama gacanta ka salaamo dhakhtar nin ah oo uu misana dhakhtar ii yahay oo uu jidhka qaarkii uu gacanta taabsiinayo sida dhegaysiga wadnaha iiga soo jawaab arrintaas adoo mahadsan macnuhu waxa weeye gabar baa waxay leedahay waxay u tegaysaa dhakhtarkii ninkii nin dhakhtara marka waxay diidaysaa inay gacanta ka salaamto haddana wuu fiisataynayaayo hadhow wuxuu taabanahayaa meelo jidhkii ka mid ah si uu u fiisateeyo marka macnuhu waxa weeyaan salaantiisee ugu diidayaa oo gacantaan ka salaamayay maadaama jidhkayga uu taabanaya mar kale oo uu fiisataynayo macnuhu su-aashu saasaa maaragta moodaa inay qoran tahay
واسكي امتحان ملا لا إلا دمعين أسئلة فقهية كجوابه إذا شيخ عمرنا جواب أن عموما waxaan odhan lahaa asalka inaan rag iyo dumarku istaaban waa asal fiican oo islaamiya kastoo laga yaabo culimada badh inay ka murmuranto salaanta gaar ahaan laakiin waxaan leenahay waxyaabo badan baa jira oo islaamku lidaruura uu kuugu baneeyey haddii marka hore aad dhakhtar gabadha helayso iskaga tag ninkan iyo taataabashadiisa oo dhan haddii gabadh la helayo dhakhtar ah weliba waxaan ogahay inkastoo dhibaatooyinku ay iska tiro badan yihiin Yurub meelo badan oo ka mid ah in la dalban karo qofku dhakhtarkiisa inuu isagu doorto tu dhakhtarna inuu ku soo baxo inuu odhan karo satisfied kuguma yihi kuguma faraxsaniyay dhaaf haddaad tidhaahdo waa kuma faraxsanidee uu iska tegayaa waad yeelan kartaa mid kale aad ku bedelato laakiin walow ay dhacdaba kolay Yurub meelo badan baa la jooga waaba laga yaabaa tuulo yar aan dhakhtar kalaba lahayn ee hal nin iska haysta oo inaad joogtaba marka hadday saasi dhacdaba ama dee duruufaad sayi abaad ku jirto aan kugu simaynin inaad la sugo dhakhtarkii gabadha ahayd inta imanaysa iyo waxaas hadday jirtaba taasi waxaan leenahay dee wixii daruuro kuugu bannaaday ee daruuradu ay kuu bannaysay yeel laakiin dee adna ha siyaadinuna hodhan intanba hadday badato tu kalaan kusii darayaa dadka gabadha dhakhtarku markanba jirkeyga wuu taataabanaya guriga markaan imaadana jirkeyga ma taataaban karaa waa maya markii dantu iyo baahidu ay taalay uu taataabanaya inta aan dantu iyo baahidu jirin yuu taataabanin wallahu a'lam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المصطفى وحاتر دتك وحي أكل امتحان يبلايا بديهن سيدي أكل إيمان بديهن هدبا هدي أرنتو سيدا استهي ومدين الصوماليات وحا هايستا أرنتاس أما ديبكا أن ودا جنو هدبا ما ديه كرنا ديبكاسي ودمداف waxaa jira imtixaanku ama balaayadu waxaan idin dee maaha dhanka xun oo qura xataa nimcada ah waa nooc min al-imtixaan baynu dhahay nimcada lafteedu kaas waa mid kale Soomaaliya mushkiladeeda ama mushkilaadka dadka ku dhaca waa acmaashoodu ka ratibma يعني اعتباطا يسقم سو دغدغون اعماش اي ددكو سميهين عملku صالح haduu iyo kor loo qaado natiijada ka timaada iyo haduu camalka kor qabanaya xun natiijada ka timaada way kala gadisay kaas waa mid idan Soomaali mushkilada haysata horta min acmaalihim bay ka timi dadku dhibtaasi mawaaqifta iska taagaan ama intii ka geystaan waa kamid qofka mu'minka ah ee Soomaaliyeed aan isagu dhib geysan ee waxaan oo dhib soo gaadhay ee Ilaahay ugu sabray ee mushkiladii intuu xalili karay isku dayay inuu xalilay ficlan isaga ajar bay u tahay kiin kaarta qabay isagu dhibta warinayna ficlan habaar bay ku siitay waxa ku xidhan tahay marka qofku iyo mowqifku iska taagay mushkiladatan qofkii mowqif fiican istaagayna khayr bay u tahay insha Allah ta'ala qofkii isagu mushkilada sameynaya ama dhibtan sii wadayna inkaar kale u siitay لكن الدودتك وناق دونيو بمجموع أعمالهم بالله كو أبال مريا الأمة واسكو حرنت مجموع عملهم آخرة دتك على نياتهم القصة صارة لكن دون دا أعماش ودو اسكو حرين وكي النبي وكنت المامي دون تقلدي وضفوا الشيء يعني نكو يريبا حقه